Waxaa galabta aad loo wada sugayaa ishana lagu hayaa kulanka dhex mari doona kooxaha Arsenal iyo Leeds United oo ka dhici doona garoonka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Emirates Stadium. Kulanka ayaa labada kooxood muhiimad u leh. Markaan ku hormarno kooxda Arsenal ayaa dooneysa inay ka faa'iideysato kulamadii ay barbaraha galeen kooxda Chelsea iyo sidoo kale Tottenham. Chelsea ayaa Wolves la gashay baraja 2-2 ah. Sidoo kale kooxda Liverpool iyo Tottenham ayaa galay barajo, halka Arsenal haddii ay badiso maanta waxay yeelan doontaa 60 Arsenal maanta haday badiso waxay yeelan doontaa 66 dhibcood, halka Chelsea ay leedahay 67 dhibcood. Arsenal ayaa dhibic u jirsa doonta kooxda Chelsea iyadoo horyaalka uu ka dhinaan doono 3 kulan. Tottenham ayaa 35 kulan ciyaartay shalay. Kulankii ay la ciyaartay kooxda Liverpool waxa uu kusoo gabagaboobay 1-1. taasi waxay ka dhigan tahay kooxda Tottenham inay leedahay 62 dhibcood kaliya, hal dhibic Arsenal u jirto. balse Arsenal haddii kulanka maanta badiso waxay noqonaysaa inay Tottenham u jiri doonto 3 dhibcood oo nadiif ah. Raahday 4 dhibcood oo nadiif ah. Arsenal waxay leedahay doontaa 66 halka Tottenham ay leedahay 62 iyadoo horyaalka koox walba u dhinaan doonto ciyaaro gaaraya 3 ciyaar. Kooxda Leeds ayaa sidoo kale u baahan kulanka inay badiso markaad fiirisid xagga hoose ee table-ka. Kooxda Leeds ayaa leh 34 dhibcood, 34 kulan ay ciyaareen, halka kooxda Everton ay 32 dhibcood leedahay, 33 kulan ay ciyaareen. Leeds ayaa u baahan inay badiso maadaama shalay Burnley la garaacay, Everton weli oo kulan u harsan yahay. saas darteed waa inay Leeds badisaa kulankan si ay kaga badbaado kooxaha u noqonaya heerka labaad. Waxaa la xaqiijiyay kooxaha Norwich iyo kooxda Watford inay u noqdeen heerka labaad ee xilli ciyaareedkan, balse waxaa moodaa 3 naadi inay ku tartamayaan kooxdii ka badbaadi lahayd inay u noqoto heerka labaad. Waa Everton, Leeds iyo Burnley. Saddexdooda mid ayaa noqon doona heerka labaad. Marka la fiirsho Southampton oo ku jirta kaalinta 15aad waxay u badan tahay Southampton inay ka badbaadi doonto inay u noqoto heerka labaad. Saddexdan naadi waa Leeds oo Arsenal la ciyaaraysa kulanka maanta Emirates waa inay si fiican u ciyaartaa si at least ay u qaadato dhibic, Arsenal baraj ugu qabato. Kooxaha Chelsea iyo Tottenham neefta ay kaga soo foqdo. Tottenham ayaa rajo kale inay kulankan Arsenal ama laga badiyo ama barbarac gasho si aysan Arsenal kaga fogaanin naadiga kooxda kubadda cagta Tottenham. Tottenham ayaa ku dareynaysa sanad soo socda inay Champions League soo aada si Arsenal ay boos kaga ciriirsato. Kooxda Leeds haddii ay badi weyso kulan kale ee xiga waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Leeds ayaa kulamo aad u adag face garay doonta. Sidoo kale kulamada soo socda waxaa wada ciyaari doona Arsenal iyo kooxda Tottenham oo ciyaari doona maalinta Khamiista. Kulan baaqday xilli Arsenal ay ka codsatay horyaalka Ingiriiska in la baajiyo kulanka sababo la xiriira inuu jiro coronavirus awgeed. Haddaba ma is leedahay Arsenal haddii badiso 4 dhibcood u jirto kooxda Tottenham iyadoo 3 kulan ka dhimaya horyaalka, Arsenal way u soo bixi kartaa Champions League sanadka soo socda. Kulanka xiga ee Arsenal ciyaari doonta kulanka Leeds kadibna wuxuu noqon doonaa kulanka Tottenham ay Khamiista la ciyaari doonto. Kulankaas haddii badiso Arsenal waxay si toos ah u calaamadsan doontaa inay u soo bixi doonto Champions League. Labadan kulan Arsenal muhiim bay u yihiin. Kulankan hadda ciyaaraysa maanta oo Axad ah iyo kulanka ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Tottenham maalinta Khamiista. Kulankaas oo kulan ahay hore u baaqday. Marka saadaashaadu maxay noqon doontaa? Follow garay channelka fadlan si aad ula socotid ciyaaro kala duwan oo aan idin falanqeyn doono horyaalada kubadda cagta sida loo ciyaaro. Sidoo kale line-up-ka aan fiirino, line-up-ka Arsenal ayaa la filayaa inay saan kusoo gasho maadaama uu ka maqan yahay Partey. Arsenal ayaa kusoo bilaaban doonta goolhayaha Ramsdale, Tomiyasu oo shalay tababarka ciyaaray, tababarka dib ugu soo noqday isagoo la arkayay sawirada kooxda ay ku baahisay page-keeda inuu Tomiyasu tababaranayay walow kulankii West Ham oo Tomiyasu kaga baxay garoonka isagoo dhaawac bedel lagu sameeyay. Waxaana soo galay markaa Cedric Suarez. Holding ayaa la filayaa inuu kusoo bilowdo qaab ciyaareedkii uu sii wanaagsanaa ee kooxda horta kooxda West Ham isagoona gool Arsenal u dhaliyay.
sidoo kale Ben White ayaa shalay lagu arkin tababarka kooxda kubadda cagta ee Arsenal isagoo kulankii hore ee West Ham dhaawac ku maqnaa. Ben White ayaa la filayaa isaga inuu haddii uu fit noqdo inuu kusoo bilowdo kursiga keedka, balse walow aan la arkin sawiradiisii tababarka, dadka inta badan waxay leeyihiin Ben White kulankani ma ciyaari doono. Ben White ma soo noqon doono kulanka Tottenham Arsenal aadka muhiim ku ah, mase Rob Holding ayaa booskaasi sii ciriirsan doona. Gabriel iyo Tavares ayaa sidoo kale difaaca ka ciyaari doona. Granit Xhaka iyo ninka la yiraahdo Mohamed Elneny ayaa qadka dhexe kusoo bilaaban doona. Waxaa la filayaa dadka isweydiinayaan ninka la yiraahdo Martinelli iyo Emil Smith Rowe keebaa lagu soo bilaabi doonaa. Martinelli waxaan ognahay in baryahan dambe uusan aad u ciyaarin, balse kulankii u dambeeyay ay la ciyaareen kooxda West Ham uu isaga lugtiisa ku caawiyay goolkii uu dhaliyay Gabriel ciyaarta markii dib la isugu soo noqday qaybtii dambe ee ciyaarta. half time-kii dambe ayaa la arkay Gabriel Martinelli oo kubad aad u qurux badan oo cross ah soo qaaday ka bacdina ninka la yiraahdo Gabriel oo madaxeynayo. Martinelli ayaa assist ka lahaa goolka, walow dadka qaar ay leeyihiin Martinelli maadaama uu in badan goolal uusan dhalin kulamadii dambena aad u liitay qaab ciyaareedkiisa, in Emil Smith Rowe lagu soo bilaabo booskiisa. Odegaard sidiisa ayuu ciyaari doonaa si u badan tahay. Saka ayaa baryahan dambe inta badan kulankii Man United kulankii West Ham waxaa la arkayay isagoo la bedelayo, isagoo ka cabanaya dhaawac, isagoo hintinaya, balse shalankii kulankii isagoo tababarkii shalay waxaa lagu arkay isagoo tababaranaya kooxda Arsenal ciyaartooyda la tababaranaya. Waxay u badan tahay isaga inuu kusoo bilaabo doono dadka qaar, laakiin waxay leeyihiin kulanka Tottenham ha loo dhigo Saka, ha la soo geliyo ninka la yiraahdo Pepe. Eden Nketiah ayaa la filayaa inuu kusoo bilowdo xagga hore. Kulanka West Ham ayaa ah koox qaab ciyaareedkeeda uu yahay weerar, marka Arsenal waxay u baahan tahay ciyaartooy difaacyada gadaashiisa mari kara ee kubadda jiidi kara ama la ordi kara kubadda, ama sidoo kale orod sameyn kara si kubadda loogu soo baaso qaabka loo yaqaano through pass. Martinelli ayaa ilaa haboon kulanka inuu kusoo bilowdo, sidoo kale Saka loo mari karo kulanka Tottenham. Kulankani waa muhiim, kulankan haddii kooxda Arsenal badiso kulanka Tottenham isagana waa lagu soo bilaabi karaa, waayo waa Khamiista maantana waa Axad. Marka Arsenal ayaa line-up-kan kusoo geli doonta, sidoo kale line-up-kan ayaa la filayaa kooxda Leeds United inay ku ciyaarto. Labada kooxood ayaa dhaawacya kaga maqan yihiin ciyaartooy, walow kooxda Leeds United ay u badan yihiin ciyaartooyda dhaawaca ka maqan. Arsenal waxaa ka maqan Thomas Partey, Tierney iyo Ben White. Intaba haddii wada joogaan kusoo bilaaban lahaayeen Arsenal. Saddexdaba hadday joogaan way kusoo bilaaban lahaayeen. Partey wuxuu kusoo bilaaban lahaa booska Elneny, Tierney, Tavares buu ka saari lahaa booska Ben White, sidoo kale Holding buu ka saari lahaa. haddaba saadaal ka bixi kulankan Arsenal aad ku muhiimka ah ee u suurtageli kara inaysan soo socdo Champions League soo baxaan maadaama 5 sano aysan Champions League soo bixin.